دستورك بنتلان لفتجيس أسجنا محاكورا أسجنا قطب كيس أفراد فقد الله بعض محاكورا أود الدولة بنتلان يكون جدا تفيريا ويكون جدا تا دولة الفدرال كأي صوماليا يحقوقها أيلان يس بنتلان وحيكون إيمانا يسافيريا وحيكون إيمانا يسا وذا حاجود يهشيس دحمرة دولة الفدرال كا يدولة بنتلان اوكي انت سكلي معها تاسول لغو قيحي دونو دستورك فدرالك يا كان دولة بنتلان ساسا ديتا مركا ودولة بنتلان دستور كيدن اوسان ugu qoran yahay kana اوسان ugu qoran yahay دولة بنتلان دولة goboleedyada kala mid ma ah sababta ma taqaan marka waxa la rabaa inaan si sax dadka ugu sheego dowladda Puntland waxay leedahay dad ka kooban qaybaha soo socda odayaal dhaqameedyo ganacsato culumaa u diin aqoon-yahano haween iyo siyaasiyiin isku aragti ka ah dhismaha dowladda Puntland aragtida fiiri waxay ka midaysan aragtida ay ka midaysan yihiin in Puntland la dhiso waxay ka midaysan yihiin sida loo dhisay waxay ka midaysan yihiin wixii ay inay ayagu Puntland ay leeyihiin oo waxay rabaan ay qaataan waxay rabaan ay diidaan weliga ma aragtay cid galmudug ka socota oo oday dhaqameed iyo siyaasi iyo aqoon-yahan iyo culumaa u diin iyo siyaasiyiin isla socdo oo galmudug oo dhahay galmudug waxaana dhibaaya waxaanay rabtaa weliga ma arag sub habubsini maanta dadka waxaan rabnaa inaan xaqiiqo hor dhigno hirshabeelle weligeed lama arag koonfur galbeed lama arag tusaale ahaan ayaan dhawad maqaan 2020 masagaashan iyo mar oo muran siyaasadda Soomaaliya ay gashay wad ogeed Puntland shirweyna lagu qabtay 1600 oo ergo oo shanta qaarad ka timid ayaa isu timid si ay uga wada hadlaan masiirka Puntland iyo masiirka Puntland siyaasadda Soomaaliya waxay ka qaadanayso dastuurkan oo Puntland waxa ku qoran asigniis waxa ku qoran hadii siyaasadda Soomaaliya sida ay u shaqeynayso ay fiicnaawayso ama khilaafaadku sii socdo ama dagaaladu ay sii socdaan dadka reer Puntland waxay xaq u leeyihiin masiirkooda inay go'aan ka gaaraan okay saasa dayta marka Puntland iyadu maamul goboleedyada kala la mid ma aha waa kala saar